bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada daawadayaal warka xogta TV qodobadaad ku daawa doontaan waxa ugu dooran ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan dawladda Soomaaliya oo lagu dilay weerar xooggan oo ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose ciidamada dawladda Jabuuti oo iskaga baxay deegaano badan oo ka mid ah gobolka Hiiraan dagaal culus oo u dhaxeeyay maleeshiyada macawisleyda iyo ciidanka New Police oo ka dhacay xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya dawladda Itoobiya oo sheegtay inay gacanta ku dhigtay xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish madaxweyne Farmaajo kulan la qaatay madaxda maamul goboleedyada Hiirshabeelle iyo Koonfur Galbeed madaxweyne Farmaajo maanta markiisii ugu horeysay uu ambabaxay dalka Mareykanka madaxweynaha Puntland Siciid Dani oo safar degdeg ah ku tagay magaalada Boosaaso hagaag haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawadi subscribe channelkan si aad u hesho warar ku saabsan akhbaaraadka caalamka intii aad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhowaada daawadayaal dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa weerar ku bilowday qaraxyo ismiidaamin ah iyo kuwa loo adeegsaday gaadiid waxa ay ku qaadeen saldhig ay degan yihiin militariga Soomaaliya oo ku yaala deegaanka Ceelsaliin iyo u dhaxeeya magaalooyinka number 50 iyo number 60 ee gobolka Shabeellada Hoose qaraxyada kadib ayaa Al-Shabaab waxay dagaal toos ah ku galeen xarunta ciidamada iyagoo muddo kooban kadib si buuxda oo la wareegay xirada sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah ciidankii ka badbaaday weerarkaas iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa weerar ka qaaday saaka aroortii xilli ay hurdayeen ciidankii ku sugnaa xirada waxayna ku dileen in ka badan 30 askari iyadoo ay ku dhaawacmeen intaasi ka badan sidoo kale Al-Shabaab ayaa la sheegay in halkaas ka kaxaysteen gaadiid dagaal oo gaariya ku dhawaad 10 gaari oo nooca dagaalka ah waxaana ku jira qaar ay saaran yihiin hub culus sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidankii gurmadka halkaas ku gaaray gaadiidka ay shabaab qabsadeen ayaa la sheegay inay kala yihiin 3 cabdibile 2 gaari oo ku xiran yahay qoriga suuga 2 gaari oo saad ah oo iskugu jira raashin iyo hub isla markaana aan laga dejin hal gaari oo booyad ah sidoo kale waxaa jira gaadiid dagaal oo dagaalamayaasha shabaab ay ka xiiso waayeen kuna gubeen gudaha xirada Ceelsaliin xogta aan helnay ee sidoo kale waxay sheegaysaa in shabaab gaadiidka iyo agabyada kale ee saanada military ay qabsadeen ay geeyeen tuulooyin hoos yimaada maanta degmada Jannaal oo ka tirsan Shabeellada Hoose sidoo kalena si buuxda ay u maamulaan Al-Shabaab dagaalamayaasha shabaab ayaa sidoo kale weerar ku qaaday degmada Awdhigle gobolka Shabeellada Hoose waxayna saraakiishii gobolka noo sheegeen in dagaalkii Awdhigle u muuqday mid shabaab ay u gol lahaayeen inaysan gurmad ka helin ciidankii ay ku weerareen xirada Ceelsaliin dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay waxayna ku sheegtay in militariga Soomaaliya iska caabiyeen weerar ay ku qaadeen dagaalamayaasha shabaab weerarkan abaaburan oo ay dagaalamayaasha shabaab ku qaadeen deegaanka Ceelsaliin ayaa u muuqda mid ay u argudanayaan dagaal bilowgii bishan ka dhacay degmada Awdhigle gobolka Shabeellada Hoose kaas oo lagu dilay xubno badan oo ka tirsanaa maleeshiyada shabaab dawladda Itoobiya ayaa qabatay xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish oo weerar qorsheynayay warbaahinta dawladda Itoobiya ee Faana ayaa sheegtay in shalay oo Sabti ahayd ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya Faana ayaa sheegtay in ragga la qabtay oo ku jiro hogaamiye lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi ee abaabulayeen weerar ay la beegsadaan meelaha ay dadka iskugu yimaadaan sida hoteelada iyo goobaha cibaadada sidoo kale saraakiil ka tirsan sirdoonka Itoobiya ayaa tilmaamay in xilliga la qabanayay raggan ay wadeen xog ururin isla markaana ay muuqaal ka duubayeen goobaha ay doonayaan inay beegsadaan howlgalka lagu soo qabtay xubnahan ayaa waxa si wada jir ah iskaga kaashaday sirdoonada dalalka Itoobiya iyo Jabuuti oo daris ah sida lagu sheegay war-saxaafadeedka warka ayaa intaas ku daraya in meelo kala duwan ay ku sugnaayeen raggaasi ay soo qabteen ciidamada ammaanka sida Addis Ababa ismaamulka Oromada iyo isgobolka Soomaalida dhawaan ayay ahayd markii hay'adaha ammaanka Itoobiya ay shaaciyeen inay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan Daacish oo doonayay inay unugyo ka sameystaan dalkaasi wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaan qiyaastii 48 kiiloomitir u jira magaalada Beledweyne dhacana dhanka xuduudda ay wadaagaan gobolka Hiiraan iyo gobolka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa ka dhacay dagaal aad u culus oo u dhaxeeyay xubno ka tirsan maleeshiyada macawisleyda ee ka dagaalanta deegaano badan oo kamid ah gobolka Hiiraan iyo ciidamada booliska gaarka ah ee Soomaalida Itoobiya New Police dagaalka oo ahaa mid aad u culus sida ay noo sheegeen goobjoogayaal ku sugan deegaanka uu dagaalku ka dhacay ayaa waxa ka
dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo labada dhinac dagaalkaasi uu ka soo gaaray. Isku horimaadka uu socday muddo ku dhow saacad ayaa si iskiis ah u istaagay, waxaana uu ka bilowday markii ay maleeshiyada macawisleyda oo roondo ku jiray ciidamadaasi ay ku kulmeen tuulooyin xuduudda ku yaala oo labada dhinacna ay ka kala taliyaan. Inta la og yahay waxaa dagaalka ku naf waayay 3 ka mid ah ciidamada New Police iyo qof ka tirsan maleeshiyada macawisleyda. Maxamed Cali Istakiin oo ah taliyaha maleeshiyada macawisleyda ee gobolka Hiiraan oo la hadlay raadiyo kulmiye xafiis wareedkiisa Muqdisho ayaa waxa uu ka warbixiyay sida uu ku bilowday dagaalkaasi. Dagaalka meesha ka dhacay waa meel adiga 48 kiiloomitir u jirto Beledweyne inteeda xagga waqooyi ma garad. Marka waxa way xuduudka Hiiraan iyo waxa way kilinka shanaad ma garad. Hadda marka saasay wax u dhaceen marka macawisleyda iyo ciidamada New Police-kana waa isku qaldameen ma garad. Ciidamada macawisleyda roonday qaadeen ma garad oo markasta waa roondeeyaan oo Hiiraan iyo shabeellada dhexe ay ku roondeeyaan ma garad. Hadda marka sidaas ay wax ku dhaceen walaalo iyagoo roonday isku dhaca anaga nin baa naga dhintay iyagana 3 baa ka dhimatay ma garad. Muddo wuxuu ku socday adiga 45 daqiiqo markii dambana taliyihii ciidamadaas hogaaminayna wuxuu ii soo sheegay in markii dambe ay wada hadal oo lagu xaliyo calshaan labada dhinac ay la soo wareystay marka 45 daqiiqo dagaalka uu socday waxa lagu kala gaartay labada calshaan meesha laba tuulo waay ma garad oo labada nin hogaamiyaasha ahaayo tuulada deganaa ayaa isoo wacay marka dagaalkina waa la galay waa lagu xaliyo waa lagu baxado waa jooga anaga degmooyinka dhamo gobolka Hiiraan ayay waardiyeen ma garad oo ciidamada waa ciidan la yiraahdo ciidamada oo ilaalada badbaadada gobolka Hiiraan ma garad. Waa markii ugu horeysay isku dhacaan ciidamada New Police-ka ee gobolka Soomaalida Itoobiya iyo maleeshiyada macawisleyda. Maleeshiyadan oo ka dagaalanta gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa deegaano ka mid ah goboladaasi waxay kula dagaalamaan dagaalamayaasha shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan xarunta madaxtooyada kula qaatay madaxweynayaasha maamulada Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen iyo madaxweynaha Hiirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo muddooyinkii dambe ku sugnaa magaalada Muqdisho shalayna sidoo kale isla madaxtooyada kula kulmay Xasan Cali Kheyre. Inta uu socday kulankan waxaa goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish. Madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta iskugu jiray heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxay iska xog wareysteen xaaladda guud ee dalka, amniga, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo xoreynta deegaanada gacanta ugu jira dagaalamayaasha shabaab. Agaasima ku-xigeenka madaxtooyada ee dhanka warfaafinta Cabdirashiid Cali Xaashi oo warbaahinta la hadlaya waxa uu ka warbixiyay waxa ay ka wada hadleen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweyne Farmaajo. Deegaanada dhaca dowlad goboleedyada Hiirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug waxaa ku sugan dagaalamayaasha shabaab, waxaana dhowr madaxdan mar ay la hadlayeen warbaahinta ka codsadeen madaxda sare ee dalka in ay wax ka qabtaan shabaabka ku sugan deegaano ka mid ah maamuladooda. Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM gaar ahaan kuwa Djibouti ee loo yaqaan Hiil Walaal ayaa lagu soo waramayaa in iskaga baxeen guud ahaan saldhigyadii ay ku lahaayeen gudaha degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Ila deegaanka ah ayaa u sheegay warbaahinta inay arkayeen ciidamadaasi oo wata gaadiidka dagaalka oo faaruujinaya degmadaasi. Lama oga sababta rasmiga ah ee ciidamada Djibouti ay dib uga soo baxeen degmada Jalalaqsi oo in muddo ay ku sugnaayeen. Dhinaca kale saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sheegay in saldhigyada ay baneeyeen ciidamada AMISOM ay la wareegeen kuwa militariga Soomaaliya. Sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay in aysan wax wargelin ka helin ciidamada Djibouti isla markaana ka warheneen kaliya bixitaankooda. Arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo maalmihii dambe Jalalaqsi ay ka dhacayeen weeraro uu khasaare ka soo gaaray ciidamada Djibouti kuwaas oo ay fulisay kooxda shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa waan baxay magaalada New York ee dalka Mareykanka halkaas oo la filayo inuu ka qayb galo shirka golaha guud ee qaramada midoobay 3 sano kadib. Waa markii ugu horeysay madaxweyne Farmaajo uu aanbabaxa Mareykanka si uu uga qayb galo shirkaas, waxaana horey u xadidayay dhalashada dalka Mareykanka uu haystay hase yeeshee uu iska casray 1 bishii Agoosto sanadkan. 2 sano la soo dhaafay ayaa shirka guud ee golaha ammaanka qaramada midoobay waxaa ka qayb galay oo madaxweynaha wakiil uga ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad. Madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa safar degdeg ah ku tagay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa safar degdeg ah oo aan horey loo sii shaacin waxa uu ku tagay maanta magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Safarka uu Boosaaso ku tagay madaxweyne Deni ayaa war ka soo baxaya waxay sheegayaan inuu la xiriiro dhinaca amniga isla markaana
uu kulamo ka bilaabay magaalada Boosaaso. Wararkan helinaya sheegaya inuu maanta la kulmi doono saraakiil dhinaca tababarka ciidamada ka taageera Puntland kuwaas oo ka socda dowladda Imaaraadka Carabta ugu sugan Boosaaso. Magaalada Boosaaso ayaa waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu amniga yar deegaanada Puntland, waxaana mararka qaar ka dhaca weeraro iyo dilal ay mas'uuliyadiisa sheegtaan dagaalamayaasha shabaab. Markaana daawadayaal warkii dibadda. booliska Masar ayaa gacanta ula tagay dad ku mudaharaadayay magaalada Suways. Ciidanka amniga Masar ayaa gacanta ula tagay boqolaal mudaharaadayaal ah oo iskugu soo baxay magaalada dekedda leh ee Suways sida ay warbaahinta u sheegeen dadka deegaanka. Warbaahinta Al Jazeera ayaa ku warantay in dadka banaabaxa dhigaya ay dalbanayeen in madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Al-Siisi uu iscasilo. isu soo baxa dadweynaha ayaa soo bilowday Sabtidii oo magaalooyin badan ay ku dibad baxeen dad madaxweynaha diidan. Hogaamiyaasha mudaharaadyada ayaa ku eedeeyay madaxweynaha dalka Masar in uu kumanaan qof aragtidooda u xiray. Wakaalada wararka FB oo soo xiganaysa dadka magaalada ayaa baahisay in ciidanka oo wata gaadiidka gaashaaman ay dadka u adeegsadeen rasaas iyo gaaska dadka ka ilmeysiiya. Daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen xogta TV. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawade subscribe channel kan.